بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعن داوديال كسو دوادا برنامجka bandhiga HBN barnaamijkan gabi ahaantiisba waxaynu ku soo qaadanaynaa Israa'iil oo ka walaacsan walwal weyn ka qabta xiriirka xoogeysanaya oo arrimaha militariga ay kamid yihiin ee u dhaxeeya Shiinaha iyo Masar toddobaadkii hore gudaha Israa'iil waxa ka soo baxday warbixin ku aadan in diyaarado dagaal oo Shiinuhu u leeyahay ay soo galeen hawada waddanka Masar iyadoo aysan arkin ama aysan qaban ama aysan ogaanba nidaamyada raadarada ee Mareykanka iyo Israa'iil arrintaasi waxay dhalisay walaac aad u weyn Shiinaha imika murqihiisa ayuu ballaarinaya waxaana gobolka bariga dhexe uu doonaya inuu kula qabsado Mareykanka oo muddo dheer halkaasi saldhigi saameyn weyn ku lahaa haddaba maxay tahay xogtan cusub ee soo baxday ee la xiriirta iskaashiga Shiinaha iyo Masar oo iibsanaysa hubkii iyo qalabkii militariga ee waddanka Shiinaha maxay arrintan uga macno tahay xaaladda gobolka bariga dhexe xifaaltanka dhanka awoodda iyo loolanka ku salaysan ee u dhaxeeya Qaahira iyo Tel Aviv-na arrintan maxay ugu taal waan eegi doonaa macluumaadkaasi oo idin internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah wargelin muhiim ah ma doonaysaa in laga cimriyo waalidiintaada oo dhintay ama sariiryaal ah wax ka yar $300 ayaa lagaga cumraynayaa waalidkaaga shirkadda Altaqwa ayaa ku samaysay qiimo dhimis waxa lagu soo duubayaa muuqaal ku saabsan qaabka cumrada ay u dhacday haddaba wixii faahfaahin kala xiriir shirkadda Altaqwa Hajj and Umrah nambarka shaashada kaaga muuqda ma ogtahay in hilibka yaalla suuqyada dalalka qaliijka Yurub iyo Mareykanka aad ka helayso magaalada Muqdisho Somali Meat Company ku dooro hilib nadiif ah oo lagu qalay kawaan nadiif ah iyadoo la hubiyay badqabka caafimaadka xoolaha hada dalbo hilib geel lo ama ari adigoo ka heli kara xarumaha Somali Meat Company ku leedahay gobolka Banaadir ama wac nambarka ku muuqda maxamed maxamuud cadde ayaa soo ururiyay macluumaad amurahani ku aadan maxamed warbixinadani maxay ku bilaabanayaan ragga la fogura arrimaha militariga Israa'iil ayaa sheegaya in ay walwal weyn oo soo tareeya ka qabaan in iskaashiga xagga difaaca ee u dhaxeeya Masar iyo Shiinaha inuu dardargalayo arrintan waxay daba socotaa iyadoo waddanka Masar ay dabool ka qaaday gantaal cusub oo drone cusub oo diyaarad aan duuliye lahayn oo la yiraahdo Hamza 2 oo ay dah furtay kadib markii ay ka wada shaqeeyeen shirkad Shiinaha ay leedahay iyo mid ay Masar leedahay oo ah wax soo saar awood military midii ugu horeysay hubkan casriga ah arrimahan ayaa waxa ay muujinayaan in militariga Israa'iil warsida uu soo saaro lagu daabacay waxa lagu tilmaamay heshiiskan Masar shirkad ay leedahay oo IOI la yiraahdo iyo shirkad ay Shiinaha leedahay oo Rigno yiraahdo ay horumar weyn ka gaareen inay iska kaashadaan inay soo saaraan qalab taasoo awoodiisu dheelitirnada xagga militariga gobolka isbedel ku keentay labadan dal ayaa isfaham istiraatiijiga ku saxiixday dalka Masar oo ay la socdaan in daboolka laga qaado diyaaradii ugu horeysay ee aan duuliye lahayn drone ah oo ay Masar iyo Shiinaha soo saaraan oo Hamza 2 la yiraahdo diyaaradaasi ayaa waxa ay ku salaysan tahay ama laga soo minguuriyay naqshad ASN 209 diyaarad Shiinaha uu sameeyo laakiin waa ka casrisan tahay waxa weeye waxa la hagaa iyadoo hubeysan waxa ayna leedahay baa leeyahay xoojinaysa u ogolaanaysa Masarna in diyaaradan ay noqoto mid niishaabkeedu sugan yahay markay weerar qaado waa gartay Israa'iil maxamed bal aan eegno iyo walaaca arrintan ay ka qabto nin ka tirsan khabiirada ku takhasusay arrimaha difaaca Israa'iil Yaakov Levin la yiraahdo ayaa u sheegay janaalka 12aad in iskaashiga labadan dhan Shiinaha iyo Masar inuu u taagan yahay calaamad digniin istiraatiijiyeed ah Masar maaha kaliya inay diyaarad drones gadanayso waxa ay yeelanaysaa
khibradii lagu samayn lahaa diyaaraddaasi waxaana isbeddel weyn ku imaanaya wax soo saarka xagga militariga ee waddanka Masar sida Lebanon hadalku u dhigayo waddan carbeed ciidamadiisa haddii ay bilaabaan inay soo saaraan agab military oo diyaarada aan duuliyaal ahayn ah oo waddanka gudihiisa lagu sameeyo Israa'iil waxaa waajib ah in ay dareen gaara siiso Dr. Shira Ben David oo ka tirsan maxadka daraasaadka amniga qaranka ayaa waxa uu sheegayaa Shiinaha in uu rabo inuu teknolojiyadan iyo aqoonteeda ku wareejiyo waddanka Masar maaha kaliya inuu agab ka gado walwalka Israa'iil iyo dadka arrimaha militariga qorsheeya waxa ku keenaya waa arrintaasi waxayna abuureysaa Masar inay si madax bannaan u samaysato qalab military arrintaas way arrinta muddada fog uurka taalada ku ah Israa'iil waa gartay dhankaas dhanka khibrada Israa'iiliinta weeye dhanka masaarida maxaynu ka haynaa khabiiradooda arrintan la xiriirta ninka madaxda ka ah shirkadan Masar laga leeyahay soo saartay diyaaradan droonka ah oo ah Sareegaas Mukhtaar Cabdilatiif ayaa ku nuuxnuuxsanaya in Xamza laba ay tahay diyaarad aan duuliyaal ahayn oo Masar lagu sameeyey waxayna qayb ka tahay istiraatiijiyad ballaaran oo agab military si maxalli loo soo saari doono wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil ayaa hoosta ka xariiqday in Masar ay hadda bilowday inay isku hadlayso in ay soo saarto agab military oo maxalli ah qaybo ka midana Shiinaha ayaa soo saaraya oo ay ka mid yihiin dareemayaasha iyo hubka iyo waxa la midka ah warside ayaa ku doodaya in arrintan ay muujinayso in Masar ay qariidad wadda qariideed la timid ay wax ku soo saarayso marka hore soo dhoofsi weeye iyo isku xirxirid kadibna waxay u dallacaysaa inay si madax bannaan ayada u samaysatay diyaaradaha droniska Masar ayaa tartiib u ballaarinaysay agabkeeda militariga inta xiriirka Shiinaha la lahayd laga soo bilaabo 2010 waxayna ka iibsatay diyaarado badan oo aan duuliyaal ahayn iyo gantaalo iyo diyaarado dagaal lafagurayaasha ayaa waxay aaminsan yihiin iskaashigan inuu dardar galay kadib markii wadamada reer galbeedka ay xanibaad kusoo rogeen hubkii laga gadeeyay waddanka Masar taasoo walwal ay sheegeen inay ka qabaan arrimaha xuquuqda aadanaha ee Masar iyo colaadaha gobolka ka jira waa gartay marka iskaashigan kordhaya ama kobcaya ee Shiinaha iyo Masar sidee loo fasiri karaa oo kale Masar tilaabadan ay qaaday gacan saarka la yeelatay Shiinaha ayaa waajiba in lagu arko in loo fiiriyo taariikh ahaan waddanka Masar sida uu u dhaqmi jiray dagaalkii qaboobaa Masar waxa ay xiriir lahaan jiray Itixaadka Soviyeetiga laakiin way ka soo wareegtay oo dhanka Mareykanka u soo wareegtay si ay awoodaha waaweyn isugu dheeratirto oo ay madax bannaani u hesho intii u dhaxaysay 1980 iyo 90-meedii militariga Mareykanka ayaa gacan siin jiray Masar marka ay timaado xagga agabka militariga hase ahaatee Masar oo ka fikiraysa inay agabka ciidaha ay ka gadanayso iyo wadamada ay ka gadanayso ay kala bedesho ayaa mudnaanta koowaad waxay siisay wixii ka dambeeyay 2013 in ay meesha rabto hubka gadato Dr. Umar Al-Shami oo ah nin taariikhda militariga Masar ku xeel dheer ayaa sheegaya in Masar ay duruus badan ka baratay oo qabataynta faraha badan reer galbeedku ay saareen haddii ay isku hadlayso cid kaliya inay wax ka gadato inay khatarteeda leedahay Shiinaha hadda teknolojiyada laga helayo iyo siyaasadda Masar uu faragelinayn ayaa ah wax ay dowladda Masar qiimo weyn siinayso kadib markii sanado badan ay ahayd mid ku tiirsan wadamo kale haddana waxaan moodaa madax bannaanideeda inay la soo baxayso waa gartay waxaan dhinaca kale aan ka eegno arrintan marka gudaha Israa'iil sidee loo arkaa arrintan dhanka Israa'iil marka laga fiiriyo iskaashigan si qoto dheeraanaya ee Shiinaha ay soo dhexgelayso gobolka bariga dhexe oo ahaa meel uu Mareykanku saameyn military ku leeyahay ayaa walwal weyn ku keenaysa nafagurayaasha Israa'iiliyiinta
oo ka digaya shirkaddan shiinaha laga leeyahay Norinco la yiraahdo inay mar horeba ay agab military ka gaday wadamo Afrikaan iyo kuwa bariga dhexe ah haddana ay u soo wareegtay dhinaca Masar oo ah goob lagu soo saari doono droneska oo saameyn weyn yeelan doona sarkaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada cirka Israa'iil colonel ah ayaa wuxuu u sheegay Haaretz in aynan Masar aynan noqonayn oo keliya wadan khatar ku ah Israa'iil waxa ay muddada dheer noqon doontaa mid istiraatiijiyad weyn leh haddii horumar weyn ka samayso xagga wax soo saarka diyaaradaha droonka casriga ah oo Masar gudaheeda laga soo saaro ugu dambeyntii waxay noqon doontaa mid wadamada kale ee gobolkana ay aqoontaas oo kale yeeshaan wuxuuna intaas ku darayaa khabiirkani in Shiinaha teknolojiyada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu sameeyo lagu arkay goobo badan oo colaadi ka jirto oo ay ka mid yihiin meelo ay dowladaha reer galbeedka u diidi jireen in agabkan casriga uu gaaro laakiin hadda Shiinaha cid walba ayuu jeebkiisa u furayaa farsamadiisa waa garta marka muxuu yahay damaca ama hamiga Masar ay leedahay Masar ayaa u aragta gantaalkan ama diyaaradan droonka Hamza laba la yiraahdo inay qayb ka tahay dadaallo badan oo ballaaran oo meeqaamkii ay ku lahayd gobolka markay timaado wax soo saarka xagga difaaca ay ku xoojinayso wadankan Masar la yiraahdo ayaa kharash badan geliyay wax soo saarka xagga awoodda baabuurta qafilanaya militariga doomo iyo qalab electronics ah Dr. Muna Abdurrahman gabadha la yiraahdo oo ah lafagure arrimaha difaaca ayaa waxay sheegaysaa in militariga Masar ay saddex shay mudnaanta siin doonaan la dagaalanka argagixisada gobolka Sinai iyo sidii lagu xaqiiqsan lahaa wadooyinka badda oo ay ka mid tahay biyo xireenka Suez iyo sidii loo cabsi gelin lahaa loo xoojin lahaa awoodooda militariga si aan loogu soo duulin deegaanadaasi diyaaradahan droniskana waxa ay qayb ka noqonayaan hadafka saddexaad oo ah in ay kharashkooda aad u yar yahay oo Masar diyaarado badan noocan ay gadan karto diyaaradahana dagaaladii ugu dambeeyay qarniga 12aad ayaa waxay noqdeen kuwo waxtar leh waxayna intaas ku daraysaa dowladda Masar inay ku rajo weyn tahay in diyaaradahan haddii ay samaysato inay wadamo kale oo Afrikaana u iibgeyso oo ay ka faa'iideysato goobta istiraatiijiga ay ku taalo iyo xiriirka diblomaasiyadeed oo wadamo badan Afrika la leedahay waa garta marka heshiiskan hay-adda ama shirkadaha Norinco iyo IOI maxaa kale oo la oran karaa dhabaha uu xaaraya labadan shirkadood iskaashigooda ayaa dhisaya xiriir wanaagsan oo sii ballaaranaya iskaashi Shiinaha ayaa bilaayiin dollar geliyay wadanka Masar kaabayaashiisa oo ay ka mid tahay wax soo saarka xagga warshadaha laga dhisay Canal Suez agaarkiisa iyo mashaariic cusub oo lagu maamulayo waxyaabo fara badan oo ay labada wadan ka wada shaqeynayaan xagga difaaca inay iska kaashanayaan tanna waxa ay muujinaysaa xagga dhaqaalaha inay ayagana ka wada shaqeynayaan cilmi baare amniga Israa'iil Dr. Ethan Cohen ayaa waxa uu sheegayaa halka Shiinaha uu dhaqaale ahaan maalgelinayo wadanka Masar iskaashi militarina waa lagama maarmaan meel kasta uu maalgeliyo inuu Shiinaha asna lug military ku yeesho Masarna hadda waxay noqotay mid ka mid ah xulafada ugu dhow ee wadamada Carabta Shiinaha uu leeyahay waxaana muuqata in ayadana Masar ay qayb ka tahay wadamada BRICS oo ku jira xerada wadamada xiriirka wanaagsan la wadanka Shiinaha waay maxay marka arrintan uga macno tahay loolanka iyo hardanka gobolka ka jira marka laga gudbo walwalka Israa'iil ay qabto khabiirada ayaa ku nuuxnuuxsanaya Masar iyo Israa'iil wali xiriir waxay leeyihiin xasiloon waxaana iskaashi ka leeyihiin arrimaha amniga xuduudka iyo la dagaalanka argagixisada si kastoo ay tahay marka la fiiriyo saameynta muddada dheer iyo teknolojiyadan casriga ah iyo xoojintan Masar iyo agabkeeda militariga ayaa waxa uu qayb ka yahay xisaabaadka istiraatiijiga ah ee Israa'iil inay ku darsato mid ka mid ah dadka la fagura arrimaha Israa'iil ayaa waxa uu sheegayaa nabadda kama saari karto meesha kama saari karto in militariga wax qorsheysto Israa'iilna waxaa waajiba inay qiimeyso awoodaha
ay wadanka masar la soo baxayso iyada oo aanan ku dalagal iyo waxaa ka fekerin. masarna hadda awood waxay u yeelanaysaa in ay sii ballaariso wax soo saarka xagga militariga. waa garta gabagabadii baan ku jirnaa maxamed, marka arrintan ma muuqataa marka diyaaraddan Hamza labo ee droonka ah inay noqonayso diyaarad si gaar ah isha ay u haynayaan dhammaan quwadaha gobolka? markii daboolka laga qaaday oo la daahfuray diyaaraddan Hamza laba la yiraahdo aan duuliyaha lahayn, waxa ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo hubka wadanka Masar uu leeyahay lagu soo biiriyay hub casri ah oo wadanka Masar samaystay. waxayna muujinaysaa Masar in istiraatiijiyada uu ka leeyahay arrimaha difaaca uu hadda la jaan qaaday wadanka Shiinaha. waxaadna moodaa in Masar ay bilaabayso in ay si madax bannaan u soo saarato agabkeeda difaaca. awal halkii ay suuqa ka ahaan jirtay gobolka militarigiisa awooddii ka jirtayna waxaad moodaa in hadda xaalad ku meel gaarnimo inay ka jirto. dhinaca Israa'iil marka laga fiiriyo iskaashigani ayaa waxa uu taagan yahay caqabado xagga teknolojiyada oo Israa'iil ku imaanaya iyo juqraafi siyaasiyaadka marka la fiiriyo inay digniin tahay in Shiinaha uunan ahayn oo keliya xagga dhaqaalaha inuu awood weyn yahay marka gobolka bariga dhexe timaado, haddana inuu isu bedelayo inuu awood militari leeyahay iyo galgal iyo in uu sida wax loo soo saaro oo agab militari loo sameeyo bariga wadamada carabta. waay tahay maxamed, marka Shiinaha ma moodaa marka inuu wadamadii gobolka awoodda lahaa uu la xirtay isagoo hadda dhisay wado weyn oo tareen soona gaartay iminka magaalada Tehran wadanka Iran, haddana Masar iyo kanaal Suez oo kaalin weyn ku leh ganacsiga gobolka dhanka baddana uu iminka la xirtay. maxay uga dhigan tahay xaaladda guud ee ganacsiga, saamaynta siyaasadda adduunka iyo tan amnigaba? su-aashaas waa su-aal aad muhiim ah oo xasaasi ah. Shiinaha galgal weyn ayuu ku heshay wadamada Latin America. wuxuu dhisayaa dekado, khadad tareen. wadamada Yurub kuwa ugu saboolsan oo ay ka mid tahay Greega waxa uu la wareegay dekada ugu weyn Greega ama badaha ku dhow Greega. waxaa la yiraahdaa Piraeus dekada la yiraahdo oo 2009 marka dhaqaale xumadii ay ka dhacday Greega ka dhacday ayay damceen inay gadaan dekadaas. cid ka gadatay waayeen. waxaa gatay wadanka Shiinaha ayaa qayb ahaan gatay. waxayna ka mid tahay dekadaha ugu muhiimsan ku yaala Yurub. sidoo kale xiriir ayuu hadda wuxuu la sameynayaa wadamo badan oo Afrikaana oo Masar ay ku jirto oo ayadana meel istiraatiiji ku taala. warshado badan ayuu gacan ka siinayaa Masar inay ka dhisto canal Suez-ka agtiisa ama gacanka Suez agtiisa si loo daabulo waxaasi. maalin dhaweyd waxa uu suuqiisa u furay 53 dal oo Afrikaana inay badeecadaha rabaan keensan karaan. waxa uu ka shaqeynayaa inuu kaabayaal waaweyn u dhiso wadamada Afrika. Shiinaha howlaha uu ka wado adduunyada saddexaad wixii hore loo aqoon jiray iyo iskaashiga uu la yeelanayo dalalka waxaa lagu tilmaamay oo nin madaxka mas'uuliyiinta ka mid ah mas'uuliyiinta madaxda Afrika ayaa wuxuu yiri nin kula shaqeynaya oo wax allaale iyo wixii kaabayaala ka caawinaya in raba inuu adiga ku doonoolaado adiga labadooda kale la shaqeyn lahayd. wuxuu yiri waxaan la shaqeynaynaa Shiinaha marka waxaa moodaa ama Israa'iil ha noqoto ama Mareykanka ha noqoto inay dhaleeceyn joogta u jeedinayaan. laakiin suuqii ganacsigii saaxiibadii waxaad moodaa hadda wadamada koonfurta loo yaqaano ama wadamada soo kobcaya inay khiyaarkooda hadda muujiyeen oo ay gadanayaan agabka Shiinaha xiriir toosan la yeelanayaan. wadankan Masar oo muddo dheer xiriir dhow la lahaa Mareykanka oo agabka militariga gadan jiray, hadda waxaa moodaa in madax banaani uu la yimid oo uu bilaabay sida wadanka Iran oo kale in uu wax soo saarkiisa yeesho iyo wadanka Turkiga. marka wadanka Masar oo shacabkiisu aad u badan yahay haddii uu agab maxalli soo saaro waxay noqonaysaa in uu isku tirsanaan sameeyo. hadda waxaad moodaa adduunka in la isxulufeysanayo. Israa'iilna waxay ka warwarsan tahay wadamadii carabta ahaa
maraykanka daba fadhin jiray ayaa hadda waxay bilaabeen khiyaar ah inay ayaga lafirkooda wax soo saartaan. iiraan bay daba taagneyd sidee gantaalo ku samaysan kartaa, sidee barnaamij ku samaysan kartaa. hadda wadankii dariska la ahaa ayaa asna xirfadii iyo aqoontii la yimid. waa tahay maxamed, aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashuna ay mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka. daawada si aad ula socoto wararkan iyo barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu soo gudbino, haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan uga xirnayn, hadda kusoo biir. waa inoo barnaamij ka xiga insha allah. inta ka horeysa nabadgelyo. American International